dheer kadib oo waliba videoga ka horeeyay aan lahaa waxaa noqonayaa qof joogto wuxuu soo geliya ugu qaatay way kana maanta waxaan doonayaa bal inaan dhowr wax ka yara hadlo waa waxyaabaha taagan ee dadku imanka ka hadlayaan sidaa la socotaan wadankii waxaa loo wada diyaar garoobaya doorasho kelmadeydan markaa ama inta yaraan doonaya inaan idhaahdo waxay khusaysaa dhalinyarada marka adduunka imika saa u egtid horumar buu sameeyay hore u socday oo waxyaabo badan baa isbedelay meel kasta aad eegto meel fogba adigaan eeginba oo aan fogaanba oo Afrikada dhexdeeda aad ka soo qaadato tusaale imika Rwanda oo dee maaragtay kolay dadku ka daaleen oo dadku ku soo celiyaan mar walba haddana Rwanda markaad eegto burburadii Soomaalida lamida ayuunbaa soo gaadhay iyagana haddana maanta waa meelaha ugu fiican Afrika ee la booqdo in fact waxay badisayba caasimadda ugu nadaafadda fiican bay badisay dadka Soomaalida la yiraahdo meel ay joogaanba waxaad moodaa iyagu wax horumar maba rabaan ma doonayna meel gaaraan ma doonayna isbedel yimaado ma doonayna inay wax cusub yimaadaan ma doonayna inay hore u socdaan laba mid weeyaan markaa ama dadkii inay hore u socdaan ma garanayaan sidii hore loogu socon lahaa ama iyagii baan doonayn ba inay horeba u socdaanba oo halkaa ay joogaan ay iska joogaan oo ay comfortable ku yihiin halkaa ay joogaan adduunyadu ka tagtay Afrika ka tagtay Asia ka tagtay adduunka dhan baa ka tagay tusaale yar haddaan idin siiyo imika caasimadda Hargeysa waxa mayorkeedu waa Cabdikariin Axmed Mooge waxaan ka maqlay iyo waxaan ka arkay anigu iyo dadka boqolkiiba 9 hadday u yaraato aan la kulmo haddii aan soo hadal qaadnaba ama ayaguba soo hadal qaadaan ama Hargeysa joogaan ama halkan ha joogaan ama meel kasta ha joogaan ama Yurub ha joogaan yacni horumar aan muddo dheer la arag oo muddo dheer aad u dheer aan la arag ayuu Hargeysa ka dhaliyay oo Hargeysa ka sameeyay xagga nadaafadda hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto iyadoo ay tahay dadkaas oo dhamay ay sidaa u taageersayn haddana waxa jira dad ka soo horjeeda oo le maya ma soconayso waxay doonaan ba ku diidaan ama ha ku diidaan qolo ama ha ku diidaan siduu eegyahay ama ha ku diidaan waxbay muusiin markaad weydiiso dadkii deganaana waxay ku oranayaan de Ilaahay ba noo soo direeba ay ku oranayaan dadka badankoodu Ilaahay ba noo soo direeba ku oranayaan marka haddaan dib ugu noqdo waxaan markii hore hadalkayna wax khusayaan dhalinyarada imika haddaan albaabkayga ka baxo waan halkaa u baxay imika meelaha lagu ciyaaro meelaha maaragtay ee dhalinyaradu isugu timaado kama hadlayaan waxa la yiraahdo politics iyo waxaas politics iyo waxa ka hadli maayaan dadka wadamadan u dhashay hadday ka hadlaan waxay inta dayaga khusaysa ka hadlaan oo inta iyaga khusaysa ay ka hadlaan waxa oranayaan halkan wallahi waxa soo baahan tahay wani wax wala inoo ma qabto maxaynu sameeynaa email baynu qoraynaa dabadna waa looga soo jawaabayaa si yar oo fudud ama waxba loo qabanay laakiin waa loo soo jawaabayaa markiiba shaqadii waa la gelayaa marka dhalinyarada waxa leeyahay meeshii aad ka aragtaan idinku inay wax qabad idinku jiro oo ama mustaqbal ka aragtaan doorta meeshii aydan dantiina ka arkina ka leexda waayo shaqo hadday noqoto garooma hadday noqoto qurxinta wadooyinka hadday noqoto qurxinta xaafadii hadday noqoto waxaas oo dhan haddii aanad adigu ka shaqaynina kaaga shaqayn maayo haddii nin aad maanta taageerto waxa la leeyahay wuxuu ku taraya aanay jirin ama wuxuu ku qabanaya aanay jirin halkii aad shalay taagnayd maanta waad taagantahay laad ka dhaqaaqin bartii baad taagantahay marka dhalinyaro waxaad leeyahay politicianada waxa inta urur samaysataan haddaydan haysan haddii ka haystaanna waa sax urur samaysta la xisaabtama marka ninkii wax idin qabta raaco ku daba fayla waayo idinkana wada qurxinaya wadankana wada qurxinaya dadkana wada qurxinaya markaad wax dooranaysiin waa very important inaad ka fikirtid qofkani muxuu ku qabanay